been la beeninayo marar badan waxaa dhacda been in been la beeniyo waxaas waxba kamay jirin waa sidan dad badan ayaa waxay u heelan yihiin inay sii faafiyaan waxaan jirin iyagoo isticmaalaya baraha bulshada maxay noqdeen waa weel sahla in beentu meel fog ay gaadho in beenta ay si sahlan u faafto marka maxaa mudan qofka intaanu waxaan baahin inuu marka hore sugo oo ku wareego waxaan maxaa ka jira sidee u jiraan xogtan ma dhici kartaa waxaan inay tahay wax suurtagal oo waxaan dhici kara ama jiri kara waxaan sidoo u jiri kara waxaan sidoo ku dhacay sourceeb ka soo baxay marka fake news adduunka imika saameyn aad culus ayuu ku leeyahay waxyaabaha fududeeya inuu meel fog gaadhana waxa weeyaan fududeeyo baraha bulshada oo qof kastaaba uu gacanta ku hayo qof kastaaba ay u sahlayso inuu markiiba baahiyo inuu markiiba yani meesh doonay wixii ka dhici karaan marka waa qofku mas'uuliyadda san waxaan horta ma jiraa sidoo u jiraa ma dhici karaa sidoo u dhici karaa maxaa suurtagalnimadiisu weeylaan noocee deedna uu qofka u yiraahdo warkan bal waxaad ka eegtay institutionska waaweynaa warbaahinta xarumihii waaweynaa warbaahinta cidima baahisay marka aad bay u badanaysaa been la beeninayo waa been marka hore been baa masada la sii beeninayo marka wuxuu baan idinku boorinayaa in aad looga feejignaado wararka been abuurka fake newska oo aan lagu dagmin oo magaranaysa si kastaba ku soo baxaan cid kastaba ha baahinayso waqtiga yar saraahdinaad waxaa isku xumsad ku dhaafay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh